wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo maanta soo gaaray magaalada Boorama ayaa deeq daawooyin ah iyo agab caafimaad soo gaarsiiyay cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama. Wasiir ku-xigeenka oo uu heliyo agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama ayaa mid u soo dul istaagay dhaawacyada lagu dabiibayo cisbitaalkaasi. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Mukhtaar Xaaji Maxamed Faarax oo deeqdan daawada ah wareejiyay ayaa Allah uga baryay inuu u boogadhayo dhaawacyadaasi. saaka waxaynu joognaa isbitaalkii magaalada Boorama oo aan soo booqanay dadkii dhaawacyadu ka soo gaadheen shaqaaqadii maalinta dhaweyd ka dhacday magaalada Boorama. marka ugu horreyn waxaan jecelahay inaan tacsi u diro una duceeyo walaalaheennii shaqaaqadii dhaweyd naga geeriyooday. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto, jannatul firdaws ha ka waraabiyo, ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeenna ilaahay cawil khayr qaba ha siiyo. walaalahay naga dhaawacan ee iminka dhakhtarada yaalla isbitaalada iyagana waan u ducaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala u boogadhayo, qof walba meesha uu ka cuduraya ilaahay ka caafiyo. oo waan ka xunnahay wixii dhacay, walaalahana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin boogadhayo. cid kastoo ay dhibaata ka soo gaadhayna waan u ducaynaynaa. waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo bahda caafimaadka ee isbitaalka iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka oo maanta halkan goobjoogu ka yahay walaalkay Dr. Sahal oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Boorama. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xaqiiqatan sida hiil iyo hooba ay ula garab istaageen walaalihii dhibta ay ka soo gaadhay shaqaaqada mudaharaadka. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in hawsha nabad lagu soo dabaalo, hadday tahay bahda dhaqanka, hadday tahay aqoon-yahanka iyo hadday tahay indheergaradka kaleba. cid kasta oo hawsha nabad ku soo dabaashayna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. sidoo kale salaadiinta iyo cuqaasha garbahayga taaganna runaantii iyagana waan u mahad celinayaa. guntiga gabagabada waxaan ku soo gabagabaynayaa booqashadeedani waxay ahayd shakhsiyan inaan aniga laftayduna wixii igaga aadan dhibtaa dhacday walaalahey aan la garab istaago. daawo iyo agab caafimaad ayaan saaka keenay isbitaalka. waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay idhaahdo inuu ilaahay iyagana u kadbo oo ay ku caafimaadaan insha Allahu tacaala wixii ka gaadha. sidoo kale agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Boorama Sahal Axmed Xuseen oo manay oo deeqdan gudoomay ayaa yiri isbitaalkii guud ee magaalada Boorama waxaynu halkan u joognaa munaasabad ah inaynu deeq agab daawooyin aynu kala wareegno wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Mudan Mukhtaar oo saaka nagu soo booqday isbitaalka guud ee Boorama isla markaana soo salaamay una soo duceeyay bukaanadii ku waxyeeloobay shaqaaqadii ka dhacday. waxaan leenahay wasiiraad baad mahadsan tahay waan ka guddoonay. waxaan leenahay abaalkaaga alla jannaa ka salaatin iyo madax dhaqameed soo dhaweeyay deeqdan ayaa hoosta ka xariiqay oo maanta aan ku wareejinayno walaalkeen wasiir Mukhtaar oo dadkiisa iyo dhaawacii iyo dhibtii gaadhay walaalihii dawada uu ku wareejinayo halku ka soo saaray wasiirka ilaahay bedel khayr qaba ugu bedelo. maalintii halka habeenkii labaad baan dhakhtarka yimiday halka wixii ka dhacayay iyo wasiisiga iyo dhaxyaaca waa ilaahay mahdi wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxa weeyaan magaaladaasi waxay labadii cisho soo bartay ilaahay baa ogaa, maantana way nagaan nabada inta ku sii socota nabadgelyo daradana waxaan leeyahay waxa weeyaan nabad wax lagu doorsaday ma jirto. nabadii wada jirkii walaalnimadan ka shaqeyno. waxaan u mahadnaqaynaa tugaara wasiir Mukhtaar oo taakuladan maanta inoo keenay. aanu tirayna hawsha inuu isagu mas-uuliyaddeeda isa saaray. jasaakum allahu khayr. awlaadda ilaahay baa mahadle. wixii dhacay dabadeedina garansiiyey danta ummadda dhaawaca iyo dhimashada dhibtii inagu dhacday sidaan uga kabsan lahay. wasiir hadday tahay iyo hadday wasaaradda caafimaadka gaar ahaan waxaan u mahadnaqaynaa oy bugtadu ammaan ka sheegatay isbitaalka inamada iyo maamulka isbitaalka haga. waxaan uga digaynaa inta afxumada gargaar uga dhigta dadka dhaawacu gaadhay. waxaan dhex marnay isbitaalka dad baa idhaa dawadaa loo iibshaa